أنت مركي أهيد كودي iyo 20 daqiiqo gurigayga anigoo ah senator Cabdi Xasan Cawaale qaybtii oo ah gudoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka labada guddiga maaragtay dastuurka labada aqal ee baarlamaanka labada maaragtay labada baarlamaan gurigayga oo aan deganahay ayaa waxaa soo maanta weeraray ciidan ka socda ciidan dawladeed albaabka hore ayay baabuurka ku soo jabsheen ganjeelka kadibna waardiyihii bay qoryo ku qabteen qoryihiina ka qaateen aniguna shaqan ku maqnaa golaha aqalka sare waxaa loo soo galay gudaha ayaa loo soo galay markii loo soo galayna waxaa gurigii baa loo galay gudaha waa la baaray waa la jabiyay dhammaan albaabada meel walbana way galeen armaajooyinkiina way soo daadiyeen wixii ku jiray qolalkii guriga dibadda banaanka qolalkii dibadda ku iyo qolalkii gudaha dadkii ku jiray oo dhan way hansaab gareeyeen taleefanadii bay xaaskaygii iyo gabadhaydii ka aruursadeen xaaskii oo masqusha ku jirtana masqushay ku jabiyeen oo ugu galeen ciidankaasi baaris kadib hadda intaasi markay dhacday anigoo maaragtay ma garan karo sababta arrimahaasi aniga ay ku dhaceen anigu ma garan karo ilaa hadda cidda waxaan samaysana informationkii ugu horreeyay xaaskayga markay soo wacday kadib waxay soo wacay ninka taliyaha nabad sugidda ka ah gobolka Banaadir oo la yiraahdo Saadiq wuxuu ii sheegay ciidankaasi waxay ahaayeen ciidan laga soo diray ciidanka Imaaraadka ayay ahaayeen ayuu yiri laakiin waxaan anigu cadaynayaa sida ninkaasi ii sheegay ciidankaas ciidan dawladeed buu ahaa wixii intaa ka duwanna hadee baarista ayaa lagu ogaan doonaa mar raba intaas inaan dhaafo